كل أربعينات كيسان وكوكبتي هالكن وحرمت دحيح حسب عدالة دريل الكوعد وكل مجالات درجيسة إنجيل فيصل علي ورابي وقام حسب عدالة دريل الكوعد أي واحد مركي وقوري ست جواب كبحيي خطبتي مال النمط كيشالي هاي وجدي مدحوينها الصومالي لأن موسى بيحي عبدي يسقون كتل بامين تاي خطبة كعنيسة مرة بعد شعبي الصومالي لأن وصل هذا الكيس ودي جاية عشانه وقبيل كلا جابوا انستيوشنز كتبوا أهورنا نتكشقيني تصوح كأنتين حوك صارنا حسب كلام عارضك أدي أقوم هنقنه إن نجا أقرارين إن أقراران إن كوميشن هني وشقدي سوته ما دام الله بكون يسعى طبعاً ووقته كذا عيو إن هدي نجا جالسين الدولة حسين وساميان كبعدنا قضب كودي لبعض هذا كرديو والله ما على قدر أو أنا جهراء أنا جي كل مية أن توتوس إيرك صوص عني إن لا قدر تاسان كل حد حادني وحنا سيدراين ومدحوينه ولا بدينا جديدي هذا صارت وده هذا كنت شو سدين أنو مركا أنو عرقنا إنه مدحوينه أنو تلقى ذنين وصدق حسب ما كان وتقني أنو لقى ذيني أنو لقى يلي وحلا وحي أنو شيء بدنا أنو كبحين وحنا عرقنا أنو صوت شيء وفرنتين عدي شقين وايلان institution democratic institutions كأنو سمايني oo asxaabta shaqeyn weydo doorasho dhici weydo in laga maarmaan noqon doonto in shir wada qaran wada tashi qaran in la sameeyo oo marka dalka la badbaadiyo ayaa aan dooninay maantana wala ogtihiin dalkeena ku marayo gudaheena waa arkaan waxa hoos u dhacay magaranaysa amnigii baabuurtii baa la dhacayaa dhalinyartii baa wax kufsanayso baabuurta wadooyinka isku taagiso booliiskeena oo lacag qaadan magaalada saay aaneen tababarna lahayn magaalada milyan iyo badh baa ku nool iyo booliiskeena intuu leeyahay xirfadiisu isma laha hawlo badan baa inoo yaala maanta waa aragteen haddaad turki wasaaradda aad tagtaan meesha turkiga haddaad tagtaan safaarada dadkeenii markaynu dawo u weynay caafimaad u weynay kuwii heliya inay dibadda u tagaana fiisa ma haystaan baasaboor ma haystaan halkaasay isdul saaran yihiin waad ogtihiin dhibaataasoo miirnaan waxaan dana jecleen inaan gudaha madayno laakiin waxay u egtay inaanu muuse u diyaar ahayn uu ka jecel yahay garanta in la garamo uu jecel yahay in la liyooyootamo oo dhaqan ku soo noolaa 27 sanaba ahaa inuu had iyo goor qof mucaarid u jiray ayuu ahaa markaanu shalayta khudbadiisii waxaan leenahay wax kale ma aha dadku si kala fogeeyay waan ka xumahay inuu 45 minute hadlay oo 45 minute wax nuxura aanu ku hadal tii anagu aan u ogolaanay inuu madaxweyne yahay uu noogu yeeray uu nagu casuumay aniga wadane inuu maanta isagii uu question mark geliyo uu yiraaho maxkamada hala tago waan aad baan uga xunahay oo legitimacy uu shaki geliyo taas wax arkaysa in adduunku haduu geliyo maalintii uu dhaweystay oo u dambeysay ninkii ka socday safaaradda Canada su'aashaas uu weydiiyay wuxuu yiri waxa la leeyahay waa illegitimate madaxnimada magaalada Muuse waxaan waa been 80 buu ku helay wana wada endorse kaleena waa dacayd isagiiba hadda bila sharci yahay keen waan ka xumahay marka waxaan leenahay reer Soomaaliyeed de Muuse waa kaas baan leenahay Muuse waa ka وحاجة السؤال شكوبا ده قاطو وفي صفيفة سومالي كيف الكسودة قدوميات ما صنتهاي مدحوينو markuu shalay hadlay wuxuu ku dooday in komishanka kala diridooda iyo tiradooda in la kordhiyo aanay isaga u oolin ee baarlamaanka u taalo oo xagaas ayuu sharciyan isagu u eegay arintaas ma jirtaa ma jirto arintaas anaga dalbanay markuu mucaaradka ahaa ku fadhiyay daahiyale waxaan hala kala diro way kala diray waxaan nidhi hala baarlamaanka la soo horeysay doorashadiisa wuu naga ogolaaday waxaanu tuub si loo qaybiyo kuraasida saddexda xusbi isaaq wuxuu ka socday kulmiyu ka socday isagii ay kahayn markaanu qaybinay 28 marka madaxweynahani uma diyaar aha inuu wax kelmad wax qora oo dalka yaala oo mushkilada inuu xaliyo nin u diyaar ma aha isagii madaxweyne haddaan isagu xalinin nimanka dadkan la saaraya leeyahay ka taga meesha waqtigii dhamaaday ayaa wax xalinaya way iska sii fadhiyaa isaga xilku saaran yahay xilkiisa haduu ka soo bixi waayana sharci ahaana waa la maraya impeachment shir ahaana shir qaran qaban ka tashanayna ku eegi mayno
haddaanu aragno inaanu lahayn karti hogaannimo uu somaliland halka marista uu ka saari karo haddaanu aragno ma ogolayn inuu dalkayga burburiyo muuse waanu ka horteginaa waanu ka tashanaynaa xaqna waxaan u leenahay inaanu waddankayga badbaadino gudoomiye injineer faysal cali waraabe waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyey shirka qaran ee uu sheegay inay qabanayaan waxa uu ku saabsan yahay waxaa la qiimaynayaa madaxnimada magaranaysaay muse waxaa la qiimaynayaa sharciga ay ku joogaan baarlamaanku intaa ma kala qaybiyo haddaa la arko sharcigu oon orkay inuu ay ku jiraan bilaa sharci ku joogaan magaranaysaay xildhibaanadu iyo dowladaha hoose oo wax sharciga odhanaya 15 sano sii jooga aanu jirin tala ka soo baxaysa maxkamadda la tegaya waa institution inay joogaan muuse haddaan aragno xilkiis ka soo bixin waa laga tashanaya amba markaa shirbeelada lagu doorto amba impeachment lagu sameeyay noo fadhiin maayo inuu waddanka fadhiyo nin aan wadi karayn oo nagu collapse karo yeelimayn duu qaban waayo oo waqtigooda qaban waayo baarlamaankaasna fadhiin maayo isagana hoggaankiisa waa ka tashanaya waan ka tashanaynaa waxa caddaanaysa inaanu capacity u dalka xukumaan lahayn hadday taasi caddaato qofku waxa weeye waad aragtaan dowladdiisa waa aragtaan 9 bilood waxay qabatay ma jirto waa aragtaa khaarijyadeena waan ka fadhanaa waa aragtaa informationkeedii waa naga adkaaday meel qolo inoo fayow qabtaa ma jirto meel waa aragtaa barigii sanaag waa galbaday ayaa sidoo kale si weyn ugu eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ka gaabsaday inay kala shaqeeyaan dhisidda iyo sidoo kale kobcinta jiritaanka Soomaaliland oo tilmaamay dhankooda xilligan inay ka go'an tahay inay ku garabsiiyaan madaxweynaha balse uu dhankiisa si weyn uga gaabsaday war caado badan war dadkan uu dildilaace war anaga qabanna wadani war anaga qabanna caare war adu noo qabsoon madaxweyne waan ku taageerno oo mucaarada hoose iska dayno oo inagu ku baari ku noqono gudaheena inteerna aan joojino intaan ka rabna waa inta Soomaaliland waa inta mala ficiltamino ficiltama fiicna waxa weeye inuu hogaamiyaa nala tashadaa anaguna wixii aan arayna u dhiibna laakiin hadduu doortay inuu 45 milyan uu gar naqsado waxaan arkaa inay tahay hogaannimad maaha taas leadership kan ka doonaynay Maxamed Aadan Faysal TV-ga Somali Cable Hargeysa.